السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام أصحابتا meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada Fartuun Bakery channel. Sa u wada jeedna asxaabta meesha waxa yaal dhan waa wax junk food la dhaho. Su'aasha maanta waxay ka taagan tahay waxaan meesha yaal oo junk food la dhahayo why ay ilmaha u jecel yihiin. Ilma walbo miyaa waxaan oo jecel junk food la dhahayo ama kuweyga le waaye. Su'aasha waa taas maanta iyo waxa meesha yaalo hooyo walbo ama qof walba daawado oo dhageysto ama ifiirsado commentiga hoos ila soo wadaag waa inuu muhiim maxay why oo ilmaha ay u jecel yihiin junk food cuntada ay guriga lagu karinayo oo kasii jecel yihiin junk food oo dhammaana aan isla garanayno waxa la dhaho junk food. Junk food waxaa laga wadaa waxyaabaha suuqa marka la tago oo diyaarka ah oo la karinaynin wax walba oo dabka la saaraynin oo la karinaynin waa junk food ready to eat waaye waa gadane waa cunile. Marka ilmaha maxay u jecel yihiin waxyaabahaas cunto kuleel oo guriga lagu karinayo oo fresh ah yani maxay ugu dooranayaan kan. Marka waxaa meeshan isku soo taagay ilmaha dhan oo adduunka sidaas miyaa ama kuweyna le waaye. Intaasaan rabay maanta inaan idil wadaago waxaana jeclahay inaan commentiga igu soo qortaan. Kuweyna waxay ka jecel yihiin cuntada guriga kanay ka jecel yihiin qashinkan anigana waxaan u aqaanaa waxaan qashin yaa qashina u aqaanaa damac hataa ma iga galaayo ama maba umaleeybo inuu cunto yahay ama in lagu dhergaayo ama ina yacni waxa anfacayo maba aaminsanib. Waxaan hataa loo sameeyo oo adig gacanta ugu sameyso cookies la dhaho Switzerland cake waaye waxa la dhaho ama cookies dheh ama wax walba dheh ama fries dheh hadaa ma u sameyso waa cunayaan tabcan laakiin se kaas u cunayaan ma cunayaan. Chocolate ha dhihin maxaa la dhahaye chips ha dhihin KitKat ha dhihin waxa meesha yaal dhan hadda waxaan guriga yaal oo kale maalintii la soo adeego oo kale oo suuq la aado oo kale oo la soo qaato alaabtan dhan ilaa oo ka dhamaado ama ilaa inuu yaalo guriga ay ogyihiin inuu yaalo guri dhan ma la cunayo. Asxaabi xanjadan anaa soo qaatay xanjadan waxay xasuusay qofkii xasuusto xamar markii la joogay min zamaan yani 96 meelahaas xanji jinjini ninkii oo xasuusto xanji jinjini la dhihi jiray. Marka anoo suuqa meesha ku wareegayo wax iska raadinayo carafteeda markaan arkay waa raadiyey tanaa ii soo baxday caraftii xanji jinjini oo kale u soo carfaysaa marka xasuus ahaana u soo qaatay waa kahay asxaabta fiidiyowga waa kaay intaasaa maanta aan jeclaysta inaan idinla wadaago la ila qabtaan ama anaga le qabno commentiga noogu reeba sidaas iyo nabadgelyo ilaa fiidiyow dambe ku kulmi doono insha Allah taala.